السلام عليكم dhamaan mucaashaqiinta xiisaysa Konami ama eFootball meel walba dadweynaha ku joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub halkaad naga daawanaysaan waa Yaki Boy Gamer anigana waxaan ahay saaxiibkiin walaalkiin Yaki Boy Gamer kusoo dhawaada muuqaal cusub subax kastoo khamiis ah waxaad igaga barateen inaan idiin soo gudbiyo waqtiga saxda ah oo gameka la soo deyn doono waxyaabaha sida officialka markaas loo keeni doono muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha maanta sida rasmiga ah loo keeni doono iyo waqtiga gameka la soo deyn doono intaan muuqaalka gudaha usii galin musow waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like sarto channelkan aad subscribe dhahdo gambaleelkan aad furato si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kaleeto waayahay ugu horeen waxaa la qaadi doonaa qaybtan Captain Tsubasa Collaboration Campaign qaybteedii koobaad ayaa la qaadi doonaa qaybtan waxyaabo badan waa ka faa'iidnay haddii ay tahay players haddii ay tahay coins haddii ay tahay waxyaalo kale oo dheeri ah ha noqoto fanaanado iyo waxyaalo oo markaasi profileka la saaranayo iyo trading wax walba adi waa ka faa'iidnay qaybtan ayaa waqtigeeda dhammaaday oo la qaadi doonaa waxaana lagu soo bedeli doonaa qaybtan kaleeto oo Captain Tsubasa Collaboration Campaign-kan ciyaaryahanno kaloo cusub fanaanado kaloo cusub koonasyo kaloo cusub waxyaabihii kale oo cusub ayaa lagu soo bedeli doonaa oo qaabkan ay ku imaan doontaa maanta ayaa si rasmi ah loo keeni doonaa waxyaabaha sida officialka markaasi loo qaadi doono waxaa ka mid ah Germany-gan oo la socdo Captain Tsubasa Collaboration Campaign-kan IBGIS-kan ayaa la bedeli doonaa oo IBGIS kale xasaasi ayaa la keeni doonaa IBGIS-ka lagu soo bedeli doono waxay noqon karaan nationalkan oo Captain Tsubasa Collaboration-ka ah oo u horeeya Diego Forlan in la keeno ayaa macquul ah waxaa kaloo lagu soo bedeli karaa IBGIS-kan oo qaybtan jinijiniga ah ayadana in markaasi qaybta Captain Tsubasa qaybteeda labaad markii la keeno IBGIS-kan in la keeno ayaa macquul ah oo waa sida officialka ah waaye labadan mid ka mid ah labadii IBG oo hadda aan kuu sheegay baagan iyo baagii ka horeeyey labadan baag ayaa la keeni doonaa mid ka mid ah waxyaabaha kale oo markaas isleeyihiin waxay tahay warqadan saa u jeedo waxay sheegaysaa 26 bisha 12 2024 waxaa la keeni doonaa wax la dhahayo penalty shoot-ka wuxuu ku imaan karaa laba qaabkan in uu ku imaado oo ninkan geeshaha wata oo saaran yahay waxaana lagu soo dari doonaa qaybta challenge events marka waxaa kaloo ay ku imaan kartaa in sidaan ay u muuqato ayadoo markaasi penalty shoot ay ku qoran tahay ninkan lambar 7ka uu wato ay saaran tahay oo lagu soo dari doono qaybta challenge eventska am dreamka waxaa kaloo isla eegaynaa players of the week-yada la keeni doono shirkadda Konami barteeda Instagram-ka ayay waxay ku shaacisay sawirkan oo ciyaaryahannadan oo wejigooda si rasmi ah loo arkay 26 December waxay keeni doontaa ciyaaryahannadan oo sidaan wejigooda la arkin laakiin sidaan u muuqdo ciyaaryahanadaas haddii aan qiyaasno waxay ku imaan karaan sidaan waa saddexda aysan baaqan doonin Paul Dybala Gabriel Jesus Kylian Mbappe saddexdan ayaa la keeni doonaa maanta waa si official ah loo keeni doonaa waxaan isla eegaynaa tinkooda waxa uu gaarayo ayaan isla eegaynaa haddii aan ku bilowno ninka la yiraahdo Paul Dybala wuxuu ku imaan karaa 95 wuxuuna gaari doonaa 99 waa AMF waaye waxaa kaloo ku xigo ninka la yiraahdo Gabriel Jesus asigana wuxuu ku imaan doonaa waa 95 wuxuuna gaari doonaa 100 waana CF waxaa kaloo ku xigo Kylian Mbappe wuxuu ku imaan karaa 97 wuxuuna gaari doonaa 102 waana CF saddexdaas ciyaaryan ma baaqan doonaan si official ah ayaa loo keeni doonaa waxyaabaha kale oo markaasi isla eegaynaa waqtiga saxda ah oo gameka la soo deyn doono waqtiga saxda ah oo gameka la soo deyn doono wadan walbo waqti u gaar ah oo gameka loo soo deeyo ayuu leeyahay haddii aan u soo noqono wadankeena Soomaali waxaa gameka loo soo deyn doonaa 5 saac oo subaxnimo haddaba maxaa ku dhahay gameka waxaa la soo deyn doonaa maanta 5 saac wadamada kale waqtiga gameka loo soo deyn doono
haddii aan kula wadaago shaashada ayaan kuu soo saari doonaa sawiradooda ayadoo markaasi mid mid aan idinku soo saari doono wadamada markaasi waqtiga gameka loo soo diin doono. Dhuusow mar kale waxaan ku xasuusinayaa intaan wadamada waqtiga gameka loo soo diin doono aan kula wadaagin inaad muuqaalkan like ii sarto, channelkan aad subscribe dhahdo, gambaleelkan aad furato si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto. Haddana waxaan kula wadaagi doonaa waqtiga gameka la soo diin doono wadamada kale.